السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحدي أنا بتقبل أن يدين رجعين يا نكني وحيري وحأن استعمالا دوّد درين كباديسا درين كهمد نينك كعيسى إسلام كان عاوسا نينكو إنو دين عقوغش كون أكسناد يا قراها ويساقنا لا يقول تلمامي إنو يهي قدار توفي عن درين كرغاني ماذا meelo fara badan aan ka arkiyay isla markaana dhaqaatiir tilmaamaysan aan arkay ayaan isku darsadaa buu yiri iyadoo ay taasi dhacday ayaa wali waxaan ka baqayaa buu yiri inaan qancin kari waayo gabadha aan guursanayo sababtoo ah waxaan siigaysanayay buu yiri in ka badan 27 sano intaan xasuusanahay haddii aanay dhowr iyo 30 sano aanay gaaray wuxuu yiri nin weyn baan ahay dadayduna way weynaatay wariina ma guursan in kasta oo aan sameeyay buu yiri guurar aan haboonayn laakiin waxaan isku dayayaa buu yiri imika inaan awood weyn aan helo qof dumar ayaanu balansanahay guur baanu ku balansanahay waxaana doonayaa guurka inaanu galno maxaa talaysiin kartaa labadaas ma isku wadi karaa dawadaas iyo qarahaas mise waan kala reebaa aad buu mahadsan yahay haddii aynu ku soo dhawaano marka koobaad dawada inaad qaadato adigoo aan istijaabin adigoo dareenkaagii aan ogaanin inta uu leegyahay adigoo awooddaadii aan ogaanin waa qalad markaa lafteeda haddii aad nin weyn tahay dawada dowsis baa lagu qaataa dowskaagaa la cabirayaa dows baa lagugu siinayaa haddaba dawadaas waad joojin doontaa sabab aad imika u qaadataa weli guur maad gelin weli naagtaada iyo xaaskaaga iskumaydaan helin jooji laakiin qaraha waa kugu dhiirigelinayaa inaad qaadataad isticmaasho kalyuhu uu fiican yahay faytamiinaad fiican baa ku jira raganimadaadu uu wanaagsan yahay jidhkaagoo dhan buu u fiican yahay isaga isticmaal dawadaas ayuunbaa iska joojin doontaa haddii ilaahay ka dhigo arrinta kale ee walaalkan iyo walaalaha kaleba aynu sheegaynaa waxa weeyaan dawooyinka raganimada ka qayb qaata ragga inay ka saacidaan ama inay ka caawiyaan ama inay markaas ay ka taakuliyaan marnaba ha qaadan dhakhtar la'aan dhibaatooyinka ka yimaada ayaa badan waxyaabaha ka dhasha ayaa badan waxyaabaha ragga ay gaarsiiyaan ee hadhowta mustaqbalka saameynta ay ku abuuraan ayaa badan xaaladaha caafimaad ee qofka ay u gudbin karaan ama ay u tallaabin karaan ayaa badan intaas ayaynu walaalkaas iyo walaalaha kale aynu sheegaynaa qaabka dabeeciga ee in badan muuqaaladeena aynu ku tilmaamnay raac haddii awooddaada raganimadu ay liidato qaabkaas ayaa ku caawin doona oo sare kugu qaadi doona awooddaadii intaas aynu ku soo ururinaynaa ila si wadaaga bulshadeena kale. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.